سؤال هذا أوسو جستو مدني دني anigu damaciisa oo muqdisho isku soo sharaxayo aad baan uga soo horjeednaa sababtuna waan sababeynaya dani waxa adeerkiisa maxamed cabdulle liibaan maxamed cawaale liibaan oo calanka Soomaaliya ninkii keenay oo waqti badan u horay waxa adeerkiisa 12 sano muuga oo ilaa ay hadda macnaha Cabdullaahi Ciise asaga labada reero ay ka dhashaan waxa la yiraahdaa dadka u aqliga badan weeye laakiin labadaas ayaa maartay lagu sharfaa Soomaaliya hadda ku sharftaa marka ninkaas maxamed cawaale liibaan ayaa adeerkiisa laakiin ninka isku wadi waaye bahdireed iyo bahdulbaanta isku baabi'iyay wiilasheedii aniga wiilasha Boosaaso jooga dhalinyarada iyo odayaasha waa dadka suldaanka waa walaalahay waa garabkeegii ninka laayay ismadiisi boqor burhaan iyo boqor ciise wax ka maqli waaye magaalada muqdisho lagu soo dhaweeymayo waana ka soo horjeednaa wali waxaan maqlayay rag isma ah oo soo raacaya annagoo iska warsan waxaan dhihi lahaa arintaa ka joogin waxa ka hortaagan qofku waxa la rabaa marka uu madax noqonayo criteria lagu doortay waa in meesha ninku aabo way gurigu ka soo gurigiisa nin sharaf badan inuu yahay maamul inuu soo qabtay dawlad maarata maamul goboleed marka aniga waxyaalaha uga soo horjeeda waxay tahay meed maxaa u dambeeyay ninka la sii wado waxa uu ka sameeyay magaalada Boosaaso ismadii iyo boqor burhaan iyo ciise intuu ku gacan seeray waxa idaacada aan ka dhageysanayna in isku baabaano ilaahay aan u baryana war ilaahu walaalahayn nimanka Puntland yiraahdana waa dadka Soomaali ugu qiimaha badan oo isqabta oo maamul sameeyay iyo kala dambeyn Soomaaliya oo dhan soo dhaweey isku mid anagoo sida iyo wanaaga u qirsan ninka baday inay isdilaan way asagoo dhaaya hebel ma arki karo marka ninka diyaano ardaynayo muqdisho waxba ka qaban karo mana u doonayna sidaas ayaa uga soo horjeeda dani qabiil ahaan uga ma soo horjeeda dani oo noo keenay walaalahayn bajartay baash Ismaan Maxamed Umar Cabdirashiid oo abis madaxweynaha yahay keena حتى هاي نوكينا نيكل يرادو بروفيسور كي محوها دولدي شيخ شريف عبد الولي وسودا ويننا حق بولينا ترتمان لكن نين بوساس سولاي نيكي دلي ولالكيس انغنا waa noo daliyay ninka Boosaaso Soolay wuxuu xamar ku soo wada ka weyn taasana uga soo horjeedna mana yeelino hadii heshiis laga gaaray heshiis Puntland ka gaartay Puntland waxa waaye ku qabatay iyo qadar alle uga maaratay ay gaareen wayna isdhaafinayaan inay isdhaafiyaan ninkan oo xamar u soo gabanaan raba wixii xun xawmala xamar dad baa iskale ana odaygeeda ah ka yeelimayno madaxweynaha laga tashan oo la qaba karin oo suldaan lahayn oo oday lahayn oo la xisaabtamin taa ka walba uu qaaday asagii baarlamaanka ma yeelino walaalahayn raali haadaan dadaan jecelnaha waaye tala naga dhaxaysa dawladnimo naga dhaxaya dani ha celiyaan farmaajanaha naga saaraan wixii ka dambeeya Umar Cabdirashiid iyo Cabdiwali iyo rag lamid ah leeyma anigu hadda faqi ba dadku markaan wareystay nin la yiraahdo Dr. Umar Faqi ayay wadaan waa nin abis daraawiishti ah jiray waa nin maartay siyaasi weyn oo doctor ah ninku doctor markuu yahay wax badan u fahmaya qofka raajiyada ama waxyaalo badan u fahmaya Cabdi ninka la yiraahdo Cabdi Shakuur waa nin gacantiisa xabad ugu dhacday inuu xil qabto dawladnimo loo adeegsaday haddana ninkii xabadaas ku dhuftay oo amray ama ka dambeeyay ayuu cafis u fidiyay haddana dad badan ay la soo hadlay xaq buu u leeyahay oo Puntland xataa ninka jecel anagu Puntland nin Puntland ka soo jeeda ama hartiya ama daarood inuu wadanka qabto ma diideyno laakiin farmaajo waa in laga bixiyaa si sharaf leh ninka la yiraahdo danina laga celiyaa umada kale wanaagsan oo walaalahayna waa soo dhaweynayna waa la shaqeynayna sidaas aan karnaa ismadii dhaqanka sideedaba haddaan dhaqan loo hesho siyaasaddu waa wax lagu heshiyay oo la isla ogol yahay kala dambeyn iyo ismaqal haddaan hawiye iyo daarood iyo digil iyo mirifle madaxweyne ay soo saarin ama hawiye ha noqdo ama daarood ha noqdo wadanka wax hagaagaya ma jiraan wax la qabto waxa ka weyn Maxamed Siyaad Barre waxa uu dhisay garoomo diyaarado ku soo degaan wuxuu dhisay ciidan wuxuu dhisay wadooyin waxaas waxa ka muhiimsanaa laha waxay way burbureen waxa burburay inuu dadka dhisal rabo aqoonta laga dhisaa waxa meesha garoomada uu dhisay waa wax uu qandaraas asaga ku qaadanay ama kaabayaasha dhaqaalaha si kambaniyal uu lahaa macnaha oo asaga uga faa'iideysanay laakiin dadka Puntland hadii uu dhiso maba dhici lahayn ba waxa uu ku sameeyay dagaalkii way dadkii caburiyay cid ka soo daba hadli karta male hatta bay leef ugu jawaabay dadka taana saxma ninka madaxweynaha Soomaaliya u noqonaya waa nin suldaana oo nabadoona oo jilicsan oo baariya oo maartay aan u jilacsaneen aan u adkeen oo hadba baashu meeshay marayso u raacaya oo dadku u sameeyeen oo geesiya oo baqayn ninkaas aan rabnaa anaga oo cadifad qabiil aysan ku jirin waxa weeye ninkani waxa uu soo qabtay Puntland guriyo u dhisay garoomo u dhisay taas waa cadda laakiin dad nool baabi hal qof ninka dila xilmaba qaba karaba mana aaminina anaga boqor burhaan iyo rag badan ama ismada ee daaroodna way isoo mahad celiyeen arinkeyga way taageereen waana ku mahadsan yihiin waan ugu mahad celinayaa wali beesha daarood oo harti ah iyo nimanka la yiraahdo gudubirsay waxay isaaq anaga shaqo isku maleen
annaga beesha isaaqna waa ku dheganahay tuulaan rabaa ay xukumaan inay la yimaadaan sideeda hadda in la isla xisaabtamo adduunka Soomaaliya meeshan waxaan naga geeyay xisaabtan la'aan waa dadkuna waxa la rabaa guri xataa shakhsiga inuu guri cad dhiso ama gaari cad wato ama gabar cad guursado waxa ka muhiimsan waxa ilaahay siiyo inuu ku xamdiyo ilaahay ugu mahadnaqo ayagaasna oo dhiso dad la soo saaro dad dalka xukumaan la rabaa oo jiilka annaga aan joogno jiilka naga dambeeyay dad nadiifa oo qabiil ka hufan oo diin iyo nasabad iyo wanaag iyo sharaf leh ila soo saaro marka Dani wuxuu soo saaraya kuwa qariban sidaasana u joojinayna mana yeelin cidi isku dayda Dani ayadoo la socdo Dani ayada saymo sidaas aniga dheela horta wuxuu yiri ninba waxa la yiri aakhira looga sheekeeyay jannadii naartii wax marka wuxuu arkay inuu qaldan yahay wuxuu yiri cadaabba ma arkeen uu geeriya inuu liso horta muxuu xildhibaan ba aan u ogolaanayna inuu yimaado ma diidana anaga sababtoo ah ninka dad laayay ama wax dad leeyihiin qaatay sida qorqor kursiga aniga la beesha maxamed camal qaatay qorqor ninka noocaas oo hadda ra'iisul wasaare raba ra'iisul wasaare arki maayo marka waxaan rabnaa anaga wax la iskula ogol yahay oo Soomaali isla ogoshahay inay yimaado Dani muxuu horta xildhibaanka uu soo saartay sidoo doona ku soo saartay ninku markuu soo baxana waa Soomaali ciddu rabona uu codeynaya waa sida saxda ah laakiin Dani waxaba la isku haysaa soo xamar ku imaalaha anaga isku haysana asaga waa kaba hor taagana tolkiisna waxay yiraahdaan anaga cashanay nin waana walaalkiisa xirta ninkaan naga xirta naga joojiya ninkaan kale walaalkeena wuxuu asaga Dani ku dhaama farmaajo waa nin aamusan wax badan soo qabtay laakiin maxamar qatar badan ay gashay qatartaas aan ka soo horjeedna sanadka ilaahay nagu guulay